أنا سيد سبورت وكسو كذا وهذا دهان ولو استيليا لكن ولو عيارك لا waxaan runtii anoo ciyaari jiray waa basketballka iyo volleyballka iyo ping-pongka hadda buul baa ku soo darsan hadda buulkaas ama marka ayara marka runtii sportu wax qiimo badan weyn oo dhalinyarada u qiimo badan waa wax lagu faano xagga caafimaadka u fiican yahay xagga jirdhiska u fiican yahay xagga baalka maaha tartamada la tartamo magac buu soo jeedaa gobolka ciyaartooyda ka soo jeedo magac buu soo jeedaa runtii anoo idinka mahadcelinaya haddii aan guulaysto garoonkanu sidaa ma ahaan doono garoonkan wuxuu noqon doonaa garoon caalami ah oo dhammaan gobolladu ay u soo shaqo tagaan u soo ciyaar tagaan buu noqon doonaa haddii ilaahay guuleeyo sida garoon caalami aan uga dhigno sida baalka muxuu ahaa isbeddel weyn ugu samayno laakiin hadda intaad siilaysaan waxaan leeyahay ganacsatada dalka joogta waxaan leenahay inay dhiirigeliyaan dhalinyarada iswada dhiirigeliyaan waxay ku dhiirigelinayaan at least waxa weeye inay dayactir u sameeyaan inay wax yar ka qabtaan dhulka in la toosiyo in maartay dhismaha si la doonayo looma wada qaban karo laakiin waxqabad si u sii jiro garoonku waxaa loo baahan yahay in la maalgeliyo ayaa loo baahan yahay marka anigu shakhsiyan waxaan leeyahay waxaan ku kaalmayn doonaa insha allah marnaan waan ku kaalmaynayaa garoonkan $20,000 baan ku kaalmaynaya waxaana ka codsanayaa ganacsatada dalka joogta ama Garowe joogta ama Puntland joogta waxaan ka codsanayaa inay dhalinyaradaas garoonka u dayactiraan ay ku deeqaan ay managu daydaan nool musharax kaliya maahana ganacsada xil baa ka saaran qof kastoo isxilqaama xil baa ka saaran qof kasta tabartiisa inuu wuxayo ugu deeqo yaan runtii ku dhiirigelinayna